bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaasha iyo dhegaystayaasha qiimaha iyo qadarinta mudan ee daafaha dunida inagala socda waa mar kale iyo mid ka mida barnaamijyadeeni dhulmar oo aan maanta idinkaga soo tebin doono kuna odorosi doono deegaanka cusub ee la qorsheynayo in laga hirgeliyo mashruuca horumarineed ee new muqdisho. halkan aad u jeedaan waxa ay ka tirsan tahay degmada qadiimiga ah ee warsheeq. sida aad arkaysaan waxa ay leedahay bacaad aad u cusub misna aad u qurux badan oo indhuhu soo jiidanayaan, ayna aad u macaan tahay marka aad ku soconayso adigoo kabala. bacaadka nadiifkiisa iyo carrada cuseebkeeda ayaan jirin wax loo dhigo, si taa lamidana waxa ay leedahay xeeb aad u qurux badan oo indhaha soo jiidanayo. halkan ayaa waxaa la qorsheeyey lana dhagax dhigay in laga hirgeliyo mashruuca new muqdisho oo uu ugu horeeyo mid ka mid a eeraboorada kuwooda ugu caalamsan ee gobolka geeska afrika, kaa oo loogu magacdaray new muqdisho international airport. waxaa sidoo kale halkan la qorsheeyey in laga furo mid ka mida dekadaha ugu horumarsan uguna casrisan ee gobolka geeska afrika. halkan ayaa sidoo kale waxaa laga hirgelin doonaa wadooyin aad u qurux badan iyo guryo aad u waaweyn, kuwa oo indhaha dadka soo jiidan doona. warshiiq waa degmo qadiimi ah, taariikh fogna ku leh bulshada soomaaliyeed, waxa ayna ka mid tahay goobihii ugu horumarsanaa uguna wax soo saarka badnaa marka ay timaado deegaanada koonfurta dalka soomaaliya. dadka deegaanka oo aan wax ka weydiinay sida ay u arkaan horumarinta iyo mashruucan hirgelintiisa ayaa sheegay inay aad u soo dhoweynayaan kuna faraxsan yihiin, maadaama deegaankoodu uu ahaa mid caan ku ah dhanka horumarka iyo wax soo saarka qarniyadii tegay. warshiiq sida magaceedaba laga dareemayo waxa ay caan ku ahayd dhanka culumta diinta, barashadeeda iyo faafinteeda. degmadan ayaa koonfur bari kaga beegan gobolka shabeellada dhexe ay ka tirsan tahay ee dowlad goboleedka hirshabeelle, halka dhanka waqooyi ee xeebaha ay kaga beegan tahay gobolka banaadir ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka oo u jirto ilaa iyo 70 kilomitir. warshiiq waxa uu Giriigii hore u yaqiinay Sarabian haddii degmada Taleex ee deegaanada waqooyi bare ee dalka Soomaaliya ay ahayd halkii ugu horeysay ee uu cadawga ku duqeeyay diyaaradihiisa dagaalka. warshiiq iyaduna waxa ay ahayd halkii ugu horeysay ee uu cadawga ku duqeeyay madaafiicda maraakiibtiisa dagaalka bishii abriil 1890. madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa waxa ay si wadajir ah u dhagax dhigeen halkan oo laga hirgelin doono airportka caalamiga ah ee new muqdisho international airport oo ka mid noqon doono kuwa ugu baaxadda weyn uguna mashquulka badan gobolka geeska afrika. deegaanka ayaa waxa uu isu diyaarinayaa horumar degdeg ah oo aad u baaxad weyn marka loo eego ciideeda cuseebka badan iyo xeebteeda quruxda badan, ayaa waxa ay ka dhigaysaa meel istiraatiiji ah oo dhanka horumarka iyo wax soo saarka iyo weliba hirgelinta mashaariicda horumarineed u diyaar ah. waxaan halkan kusoo koobaynaa barnaamijkeenii dhulmar oo aan maanta ku odorasaynay deegaankan cusub ee laga hirgelin doono new muqdisho, waxaana barnaamij dhammaystiran oo dhulmar ah idinkaga soo diyaarin doonaa degmada qadiimiga ah ee warshiiq oo taariikh weyn ku leh koonfurta iyo guud ahaan dalka Soomaaliya. waxaa barnaamijkan idinla socodsiinayay aniga oo ah Cabdulaahi Shiine.